kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawaneysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa maalinimo talaada ah, taariikhduna waa 14 abriil sanadka 2026. barnaamijkeena labaad waxaynu ku soo qaadanaynaa inta badan arinta Hormuz oo xiise gaara yeelatay kadib markii la sheegay maraakiib Shiinuhu leeyahay iyo kuwa shirkada Shiinaha ay lahaayeen u kiraysan ay markaa inta ka soo tageen dekedaha Iran ay toos u mareen meeshii Mareykanka waa go'doominay uu lahaa. yaa nala hadli kara waay Chinese barnaamijkan kii ka horreeyna waa ku soo qaatay weliba Chinese alaabtiisii iyo maraakiibtiisii iyo hawlihiisii iyo maraakiibtiisii dagaalka iyo wixii oo dhan weli ma imaan. marka waxay yiraahdeen Shiinuhu wax la aqbali kara ma waxa sameynaysa go'doomintaas annaga ma ku jirnay taageen cid kale aa go'doominaysa aday ku taala annaga meeshan wax badan nagala dhaxaya. marka hadii kuwana qashqashaado adiguna de kuwaga la qashqashaadaya maraakiibtada adduunka isaga kala gooshaysa kuwaas ayaguna nagta laga saaraya. marka hadda sheekada aad loo rogrogaya saacadihii la soo dhaafay sidee ku dhici kartaa macalinka weyn ma cabsaday warbaahintii Mareykanka kuwii kale reer galbeedka kuwii kale caalamka kulli waa la falanqeynaya. haddaba maraakiibtan iyo waxay ahaayeen iyo wixii laga qoray ayaynu barnaamijkeena annaguna ku faahfaahinayna. haddaba marka ugu horeyso waxaanu ka bilaabaynaa telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegay 2 markab oo kuwa shidaalka qaada inay ka gudbeen Hormuz, waxaana la sheegay waxyaabaha uu dibadda ka keensado Shiinaha ama Beijing ay soo gadato oo shidaalka ah inuusan dagaalkan wax saameyn ku yeelanin. haddaba sababtu maxay tahay uusan saameyn ugu yeelanayn? haddaba maanta oo talaada ayaa la sheegay markab kuwa shidaalka qaado Shiinuhu leeyahay in uu markaa xayiraadii Mareykanku saaray Iran uu khilaafay oo uu markaa halka ka gudbay. waliba markabkaas waxa iska lahayd shirkad la rumaysan yahay inay ka mid tahay shirkadaha Mareykanka uu xayiraada saaray ee xiriirka la leh Iran. haddaba waxa la sheegayaa in kooxaha iyagu maraakiibta la socda dhaqdhaqaaqooda xaruntoodu tahay London iyo 2 shirkadood oo la yiraahdo Marine Traffic iyo Cabler inay xaqiijiyeen in markabkan ay lahayd shirkad Chinese oo la yiraahdo Rich Star kaasoo la sheegay inuu ahaa safiinadii ama markabkii ugu horeeyay ee ka gudubta Hormuz oo markaa khaliijka xaqiisa ka timaada tan iyo markii cunaqabataynta la saaray Iran. haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay waxay ahayd markabkan wuxuu ahaa mid xajmigiisu uu yahay maraakiibta dhexe wuxuuna waday 250,000 oo barmiil oo shidaal ah oo markaa uu markaasi la sheegay inuu ka soo qaaday qaar ka mid ah dekedaha gobolka gaar ahaan deked ku taalay Imaaraadka oo la yiraahdo Al Hamariya iyo deked kale oo Iran uu soo maray. waxaana la sheegayaa inay iska lahayd shirkadda la yiraahdo Shanghai Shenzhou oo ah shirkad iyadu markaa maraakiibteedu xamuulka ay kala qaadaan. inkastoo cunaqabatayn Mareykanka la saaray shirkadaas haddana Iran iyo arinteeda loo saaray lama garanayo sababta. waxaa lagu leeyahay maraakiibta Mareykanku ay ula hadli waayeen ee maraakiibtan iyagu xayiraadii uu sheegay jabiyay. marka dhowr arrimood halkan marka isku hoos jira maraakiibtan waxay ku jiraan listiga Mareykanka uu saaray shirkadaha iyo maraakiibta la macaamila Iran oo uu hore cunaqabateen u saaray. u fiirsada hore inta aan xayiraadan la keenin ayaa hore cunaqabateeno loo saaray shirkado la macaamila Iran. shirkadahaas cunaqabateynta la saaray maraakiibtoodii ayaa waxay ka soo baxayaan dekada Iran waxay soo mareen dekad Imaaraadka xamuule dhinacyada ka soo qaadeen kadibna iyagoo shiraacanaya ayay soo mareen meeshii Mareykanku ay fadhiyeen oo ay lahaayeen wax gali kara wax ka soo bixi kara dekadaha Iran ma jiraan. ayagoo hawshaa soo qabtay oo haddana waliba xayiraad Mareykanka u saarneed ayaa waxa leeyahay nimanka meesha waa iska soo mareen.
macallinka weyn markay indhaha loo shitay barnaamijkii hore sida ay jiinuhu u hadlayeen waa arkayseen. marka hadda waxaa leeyahay macallinka weyn waa ka baqay sheekadan inuu isku sii furo awruqaati ka jooga iiraan haddana shiina iyo afaaro kale inuu galo awalba waxaan handadaadii waxaan culays ku saar iiraan wadahadallada ha timaadee ka tahay. marka waxaa leeyahay sheekadu halkaasee mare. waxyaabo kalea marka soo baxay laleeyahay xalay 2 markab oo kalea meesha martaa iyaguna iiraan ka yimid oo weliba qaar xamuul kusoo dejiyeen. dekad ka mida waxay kusoo dejisay galley kusoo dejisay galley tiro badan ayuu markabka kusoo dejiyey meesha. xamuul kalena waa soo qaaday waa la soo mara meesha. calamo kalaa la wataa laakiin shirkado Chinese iskala lagu leeyahay. marka saacadihii la soo dhaafay intaasoo markab oo Chinese qaar leeyihiin oo qaarna iyagu ay mas'uul ka yihiin meesha maray. marka odagii waxba meesha wax ma jiraan leeyahay wuxuu qabanayo aflo wada leeyahay dhikaleera Trump. haddaba aan tusoo warkan kale isagana warbixintan kale iyaduna soo korortay waxaa la sheegayaa 2 safiinadood ama 2 markab ayaa waxay ka yimaadeen Iiraan kadibna waxay ka gudbeen marinka Hormuz. inkastoo Mareykanku uu go'doominta ku hayo halkaas uu sheegay inuu go'doomin ku hayo sida ay qorayso jariirada la yiraahdo Al-Quds. haddaba Al-Quds waxay leedahay bayaan ka soo baxay shirkadda la yiraahdo Kepler oo iyada ku takhasusay la socodka maraakiibta ayaa talaadada maanta waxay xaqiijisay 2 markab ugu yaraan inay ka gudbeen kuwaasoo ka yimid dekadaha Iiraan waxay ka gudbeen Hormuz iyadoo Mareykanka uu cunaqabateen saaray halkaas. haddaba maxay ahaayeen marka waxaa la yiri waxay wadeen badeecooyin waxaana la sheegay in mid ka mid ay wadatay calanka Liberia ay wadatay waxaana la sheegay inay ka gudubtay halkaas. waana waqtigii shaqadan ay dhacayso tan iyo markii saacadu ay ku dhacday kadib oo marka Mareykanku uu xaynibaada ku hayay halkaas. haddaba waxaa la sheegay in ay soo dejiyeen xamuul fara badan ay halkaa ku soo dejiyeen kadibna ay ka soo laabteen. haddaba waxaa la sheegay inay tageen mid ka mida maraakiibtaasu ay tagtay badda Iiraan ama dekada Iiraan iyadoo la sheegay weliba inay ahayd meel khaliijka aad ugu dhow. haddaba waxaa la sheegay in sidoo kale markabka Shiinaha Rich Starry oo isaguna ka gudbay halkaas. marka maraakiibtan marka waxaa leeyahay sidee ku dhici kartaa ninkan xayiraadu saaray meesha markab dekadaha iska tagaya wax soo dejinaya soo noqonaya soo maraya wax xayiraada oo Iiraan saaran maba jiraan leeyahay meeshan wax xayiraado meesha saaran oo ilaa hadda la cadeeyay oo muuqda maba jiraan leeyahay. marka hawshaas halkaas maray. marka 2 arrin marka la isku ayaa qaar waxay leeyihiin cadaadis ayaa la saarayaa Mareykanka oo ku saabsan in fursad la siiyo wada hadalka. haddii markab Iiraan u socda ama ka yimid ay nimanka kanu qabsadaan oo ay gacanta ku dhigaan Iiraan weerar soo qaaday xabad joojintii way jabeen. marka Mareykanka waxa leeyahay wajiga labaad ama wada hadalka labaad fursad in la siiyo. taa marka qola ku doodayso leeyahay Mareykanka laftirkiisu waray ka tahay iyo afwa go'doomi ma ahane si dhaba wali uma hawsha looma gelin oo lagama quusan wada hadalkii wali lagama quusan oo xabad joojintii ayaa wali jirta. qola taas ku doodayso. qolo kale waxay leeyihiin nimankan Shiinaha uu ku lug leeyahay ayay uga baqeen. haddii hadda wadan kale oo aan Chinese ahayn ay Iiraan tagaan ama maartay wax u geeyaan hadduu sii daayo markaas la arkayaa. laakiin Chinese warkiisu wuu cadaa. marka Chinese-ka inuu faraha la galo u dagaalkiisa iyo mashruuc kale isku furo ayuu ka cararayna qola ku doodaysa. marka hawsha halkaas maray. marka arintii waanta maxaa ka soo kordhay? waanta waxa leeyahay waxa ka soo kordhay in rajo laga qabo Pakistan dadaal ay wada in kulan kale uu dhaco. waliba
warbaahinta maraykanka qaarkeed waxay leeyihiin khamiista soo socota inuu kulan ka dhacaa laga yaabaa ama jimcaha arrintaas iyaduna way jirtaa kulley waa la arki doonaa wax rasmi oo kasoo baxay ma jiraan dhanka kale madaxweynaha faransiiska ayaa isagu wuxuu codsi u diray maraykanka iyo iiraan wuxuu yidhi fadlan sii wada hadallada yaan la joojinin arrintan wadaxaajood ha lagu dhammeeyo xilli marka faransiiska iyo ingiriisku ay magaalada baariis ku qaban doonaan jimcaha kulan ballaaran oo dowlado ay kasoo qeybgeli doonaan looga hadlayo sidii hormus adduunka nabadgelyo loogu mari lahaa oo xiisadahan iyo waxaan taagan loo qaboojin lahaa iyagu marka ma wataan faransiiska iyo ingiriisku dagaalaan ku furaynaa hormus ma wataan iyagu waxay wataan sifo diblomaasiyadeed heshiis wax lagu yahay iiraan iyo waxa dhan iyo sidii markii hore loo mari jiray in loo maro oo xaalku si nabadgelyaa lagu dhammeeyo xiisadahan iyo waxaan taagan la joojiyo marka sidii hormus nabad loogu mari lahaa iyadoon dagaal la isticmaalin maskax la isticmaalayo ayaa waxay leeyihiin ayay rabaan faransiiska ingiriisku inay ka shaqeeyaan haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay macron ayaa ugu baaqay maraykanka iyo iiraan inay dib u bilaabaan wadahadaladii u dhexeeyey madaxweynaha faransiiska macron ayaa war soo saaray wuxuu sheegay maruu la hadlayay madaxweynaha maraykanka waxauna ugu baaqay iiraan iyo maraykankaba inay dib u bilaabaan wadahadalada oo waxyaabaha dhexdooda isfahmi waaga ah meesha looga saari lahaa waxaana lagama maarmaan ah waxa uu sheegay in xabad joojinta lagu soo daro lubnaan isagu waxa uga dhigan tahay lubnaan ugu dhiganta lubnaanna waa inay ku jirtaa uu leeyahay marka hawshaas halkaasay mare lubnaanna goordha way ballansan yihiin caawa waxaa sidoo kale xataa kulanka ka qaybgali doona wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka la leeyahay sida CNN iyo ay ka hadlayaan waxaa leeyahay caawa ayaa kulan wuxuu dhex mari doonaa foolka foola lubnaan iyo maraykan lubnaan iyo israa'iil maraykankuna goobjoog ka noqonaa kulanka wuxuu ka dhici doonaa Washington marka halka iyaduna wadahadalladaas oo arrimaha taagan iyo dagaalka socda wax looga qabanayo ayaa iyaduna halka ka socota oo wasiirka arrimaha dibadda uu ka qaybgalayo arrinta marka dood badan ka taagan Israa'iil waxay rabtaa inay qoorta isu geliso Lubnaaniyiinta dhexdooda ay tiraahdo anigu nabad waa ogolahay inaan xiriir wanaagsan la sameeyo waa ogolahay laakiin inta Xisbullah ay meesha hub ku dhaxaysato wax nabada ma dhacayaan Xisbullah yani ma isdeenayno annaga waxa waaye Xisbullah annaga ma isdeenayno taagay marka hubka ka dhiga hal dawlad adikoo ah aan idin la hadalnaa leey marka nimankan Xisbullah ayaga inay isku dhacaan marka ma wax faa'iido ugu ma jiraan Lubnaaniyiinta Xisbullahna waxay taagan tahay nimankan waa la yaqaanaa ballan ma laha ahdi ma laha waxay leeyihiin ma laha waddankan inay qabsadaan ay rabaan Xisbullah maanta hadday hubka dhigto cid kale oo la dagaalamaysa inay si jireen Israa'iil al-Kubra waa iska wadana Israa'iil shaweyn ku darso Lubnaan waay nimankan marka waxay leeyihiin idin dagin nimankan waxay aqligoodu wuxuu yahay cidii iska dhicisay yiraahdeen marka hawsha iyaduna caawa ayaa loo balansan yahay wixii ka soo baxa waa arki doonaa haddaba qaybahan ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaa alaaba wararkii soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba warka soo dhacay wuxuu yahay waxaa leeyahay waa bilowday wada hadalkii tooska ahaa ee dhex marayay Lubnaan iyo Israa'iil waxaana uu ka dhacayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ee magaalada Washington halkaas uu wada hadalkii ka furmi doona waa wada hadalkan hadda dhow ka hadleynay ayaa marka halka ka bilowday la leeyahay kullay wixii natiijo ah waa soo saari doona waa idin soo gudbin doona dhanka kale wararka soo baxay waxa kamid ah iyana oo soo kordhay in Israa'iil ay wali weerar ku hayso qaybo kamid ah koonfurta Lubnaan iyadoo Xisbullah iyaduna ay sheegayso inay marka weerar gacanta la iskula tagay habeennimadii xalay ay la galeen ciidamo Israa'iiliyiin ah iyadoo la sheegay in 8 kamid ah ay ku dhaawacmeen ciidanka Israa'iil halka 3 kamid ah la sheegayo xaaladoodu inay halis tahay sida Israa'iiliyiintu ay sheegteen marka halka hawshaas way ka socotaa wada hadalkan halkan waa ka furan yahay wixii soo kordha marka barnaamijka saddexaad ayaa noo ballanaa diyaaleyn waxaan idin xusuusinayaa channelkeena kale qisooyinka nadaara 2
maanta waxay ahayd talaado waxaa soo gelinay qiso cusub oo cajiib ah oo aan halkaa kasoo gudbiyay dadka qisooyinka jecel iyaguna halkaas ayay ku faysteen doonaan inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo